muuqaalkan waxaan kugu sheegi doonaa shanta madaxweyne ee ugu xukunka dheer qaaradda Afrika waxaa lagu xantaa kursi jacayl iyo inaysan dhageysan rabitaanka dadweynaha. Ninka hogaaminaya ee ugu xukunka dheer waa madaxweynaha Equatorial Guinea. Magaciisa waxaa la dhahaa Teodoro Obiang. waxa uu ahaa taliyaha ciidamada qalabka sida, laakiin waxa uu afgambi military ku qabsaday adeerkiis sanadku markuu ahaa 1979. da'diisu markaas waxay ahayd 37 sano. muddo ku siman 45 sano ayuu kursiga fadhiyaa, waxa uu astaan u yahay kaligiis-talisnimada casriga ah ee qaaradda Afrika. madaxweynaha labaad waa madaxweynaha waddanka Cameroon, Paul Biya. waxa uu kursiga ku soo fariistay bishii November sanadkii 1982. markaas wixii ka horeeyay waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha waddanka, laakiin waxa uu bedelay madaxweynaha asiga ka horeeyay Ahmadou Al-Haji. wixii intaas ka dambeeyay waxa uu si tartiib u dhisay nidaam isaga ku aroorsan. muddo ku siman 42 sano ayuuna xafiiska joogaa. madaxweynaha saddexaad waa madaxweynaha waddanka Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. waxa uu ahaa intuusan madaxweynaha noqon hogaamiyaha jabhadii la oran jiray NRA. waxa uu kursiga u yimid si uu u bedelo xukun military oo muddo dheer ahaa, laakiin wixii intaas ka dambeeyay isaga ayaa ku biiray kaligiis-taliyayaasha qaaradda Afrika. isagoo 42 sano jir ah ayuu go'aansaday inuu waddanka ka dulqaado xukun military oo muddo dheer ahaa, laakiin weli waxa uu kursiga joogaa muddo hadda laga joogo 39 sanadood. welina waxaa la wariyaa inuu u taagan yahay doorashooyinka soo socda. kaalinta afraad waxaa ku jira madaxweynaha dalka Eritrea, Isaias Afwerki. waxa uu xukunka ku fariistay sanadkii 1993 markaasi oo dalkan yar ee Eritrea uu ka go'ay dalkan dariska nahay ee Ethiopia. intaas wixii ka dambeeyay wax doorasho kama dhicin dalka Eritrea. Isaiasna waa madaxweynihii ugu horeeyay uguna dambeeyay ee uu yeesho dalka Eritrea. dadka reer Eritreana weligood ma arkin madaxweyne aan asaga ahayn. waxa uu xukunka yimid isagoo ay da'diisu ahayd 47 sano. muddo ku siman 31 sano ayuuna ka talinayaa xafiiska. madaxweynaha ugu dambeeya ee shanaad muuqaalkeena waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Congo, ninka lagu magacaabo Denis Sassou. waxa uu xukunka yimid isagoo 32 sano jir ah sanadku markuu ahaa 1979. laakiin wuxuu xafiiska ka maqnaa sanadihii u dhaxeeyay 1992 ilaa 1997. xukunkiisa marka la isku celceliyo waxa uu joogaa ayaa la leeyahay muddo ku siman 40 sano marka lagu daro sanadihii uu xafiiska ka maqnaa. waa madaxweynaha shanaad ee ugu waqtiga dheer qaaradda Afrika. shantaas madaxweyne ayaan kusoo koobaynaa muuqaalkeena. mar walba la soco Omaya Exchange si aysan ku dhaafin macluumaad badan.